السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, anigu waxaan ahay Cabdullaahi Jamaal. Waxaan ka mid ahay tiimka Somali Innovation Hub, xarunta hal-abuurka Soomaaliyeed magaceedana loo soo gaabiyo si hab caawi. Waxaa noo casuuman Geelo Bashiir oo aanu halkan uga casuunay inuu aan ku falanqeyno barnaamijkan ciwaankiisu yahay Understanding Online Opportunitieska oo ah fursadaha ganacsi ee suuqyada online-ka oo hadda muddooyinkii dambe adduunyada casriga ah aad u xoogaysanayay. Marka Geelo Bashiirna wuxuu ka mid yahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee fahamka buuxa ka haysta ciwaankan aan ka doodeyno, maadaama isagu markaas uu yahay khabiir barnaamijkan ku shaqeynayay muddooyinkii u dambeeyey. Intiina badanna waa taqaanaan oo Geelo Bashiir YouTube-ka iyo Instagram-ka iyo meelo badan waa ka daawateen. Marka soo dhawaada, waa sugaynaa inta soo gelaya Geele iyo tiimam kale naga maqan. Geele may maqlaysaa khadku see kuu yahay? ninkii la yidhaahdo Geele may maqlaysaa? internetku see kuu yahay? waaku maqla walaal, waaku maqla Cabdalla, may maqashaa adiga? aad ba u mahadsan tahay. Geele soo dhawow, ku soo dhawow si hab Somali Innovation Hub, xarunta hal-abuurka Soomaaliyeed. Caaway barnaamijkan waxaan ku falanqeyn doonaa aniga iyo adiga iyo dhammaanba tiimamka kale halkan jooga oo ka kala socda si hab team iyo Geelo Bashiir team iyo saaxiibada kaleba. Soo dhawaada, halkan waxaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka ciwaankiisa kor ka muuqda oo Understanding Online Business Opportunities oo ah fahamka suuqyada ganacsiga ee online-ka ah. Geelo Bashiir baa noo casuuman oo aad wada taqaanin intiina badan. Geele waa nin khabiir ah oo suuqyada online-ka inta badan muddadii u dambeeyey ka shaqeynayay. Waxaannu ognahay adduunyada horumartay hadda in suuqyada online-ka ahi ay aad u xoogaysteen. Geela caawi nala jooga, khibraddiisu nala wadaagi doonaa, caqabadaha jiruu sheegi doonaa. Dhalinyarta halkan iyaguna ku jira way contribute gareyn doonaan oo mikrofoonka soo qabsan doonaan oo su'aalay weydiin doonaan. Anigoo Cabdullaahi Jamaal barnaamijka idin xiriirinaya. Soo dhawaada. aad ba u mahadsan tahay. marka hore waxa weeye si hab iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Cabdalla oo igu martiqaaday caawa spacekan. insha Allah waxaan rajaynayaa aniga iyo dhalinyarada kaleba insha Allah inaan aan meeshan wax badan ku kala waxa weeye faa'iideysano oo wax value leh insha Allah aan isku soo kordhino. waxa weeye dhammaantiin mar kale aad baan idinku mahadcelinayaa walaalayaal. aad ba u mahadsan tahay Geele. Geele marka ugu horeysa waa kuma Geelo Bashiir, adigoo noo sharaxaya qofka uu yahay Geelo Bashiir oo aniga noo casuuman. waa maasanta Cabdalla, waa soo koobaya. magacayga legal name-kayga caadiga waxaa la Cabdirxaan Bashiir, laakiin magacaygan inaasta waa la Geelo Bashiir. brand name-kaygana almost asagaan u isticmaalay business-kayga dhammaanba wuxuu hoos tagaa magacaas Geelo Bashiir. anigu waxaan kusoo barbaaray waxbarashadeeda hoose dhexe ilaa iyo secondary aan kusoo qaatay magaalada Gaalkacyo. waxbarashadeeda heerka koowaad ee jaamacadda waxaan u aaday dalka Malaysia. 2014 baa dhameeyay Cumar Sumter.
15 January waxaan aaday Malaysia. halkaasna waxaan kusoo diyaariyey waxa weeye waxbarashadeeda waxa weeye qaybta sare oo aan waxa weeye kasoo qaatay Bachelor of Economics. 2019kii waxaan usoo guuray Europe. waxaan deganayaa hadda Belgium. halkaasna waxaan ka bilaabay nolosheeda kale iyo skillska kale aan hadda aan master ku shaqeeyo oo ah online businesska iyo khibradahaas. family baan ahay, waxaan deganahay Belgium. intaas wax taleeya waa okay. aad baa umahadsantahay geele. si fiican baan uga dharagnay qofka uu yahay Geele Bashiir iyo inaan barano intaas barashay ahayd. saaxiibada kale ee barnaamijka dib uga soo biiray waxaa leenahay soo dhawaada. waxaa halkan uga casuuman Geele Bashiir oo magaciisa yahay Cabdiraxmaan Bashiir oo runtii aasaasaha Geele Digital Service oo caaway aan halkan ku falanqeyn doono barnaamijka fahamka suuqyada online-ka. saaxiibayaal soo dhawaada ayaa leeyahay. waxaan ahay Cabdullaahi Jamaal, waxaan ka mid ahay bahda Somali Innovation Hub. barnaamijkan ayaa diidaadhin doonaa, idinkuna su-aalihiina ayaad lahaan doontaan. Geele haddaan kusoo laabto, bal wax yar waxaad faahfaahin naga siisaa Geele Digital Service iyo waxa ay qabato. waa mahadsan tahay. waxa weeye businessada aan sameeyo waxay u kala baxaan ilaa iyo afar business baan hadda waxa weeye baan hadda sameynaa. businesskeena ugu ballaaran waxa weeye academy waa leeyahay, online academy. ardada waxaa barnaa skillska online businesska, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan waxaan ka xusi karaa waxaan barnaa e-commerce-ga, sidoo qof u bilaabi karo ganacsi e-commerce, sida qofka uu store online u samaysan karo hadduu qofka keligiis website samaysto oo develop garayo, marketingkii, content productionkii, siyaara Alibaba iyo platform internationalka looga soo adeegto. waxa weeye waxa marketingkii Facebook iyo Google si looga xashiyo. adoo skills kale way jiraan, blogging ay kamid tahay, qaabka qoraalka lacag looga sameeyo. academiga waa sameynaa, waa businesska koowaad. businesskan labaad waxaa sameynaa waxaa la yahay shirkad agency ah oo website development iyo arrimahaas baan sameynaa oo dadka entrepreneurka iyo Soomaalida businesska leh baan digital presence baan ka caawinaa inaan website u sameyno, branding aan ka caawino, iyo sidoo kale wax kastoo business online ku saabsan kaas waa sameeyaa. sidoo kale waxaan sameeyaa walaalayaal blogging waxa la dhaho articalo baan soo qoraa. ilaa 2020kii waxaan soo qoray articles oo blog baan sameeyaa website-ka gelebash.com baa keeli kadhaan. ilaa 100 article baan soo geliyay Google-ka oo runtii dadka value aan kusoo kordhino, information online aan uga sheekeynay arrimahaas. dadka value aan kusoo kordhinaa, sidoo kale lacag baa ka sameynaa oo qoraalka saa ogtiin lacag baa laga sameeyaa. waa win-win situation weeye, kaasna waa sameeyaa. businesskayga afraadna waxaa sameeyaa YouTube oo waxa weeye content creationka industry-gaas baan ku dhex jiraa oo YouTube-kaasna waxaan kusoo gudbiyaa runtii waxa weeye information aad u tir badan. ilaa 3 sano iyo barba waxaan ku jiraa businessadaas. hadda alxamdulillah head office-keena wuxuu ku yaalaa waxa weeye waddanka aan deganahay. sub office waxaan ku leenahay sidoo kale Soomaaliya. shirkadda ilaa 4 qof baa u shaqeeya oo engineer ah oo website development waxa weeye ka caawiyo. berigii hore keligii baa sameyn jiray waxaas, laakiin hadda maadaama businesska balaartay, team baa waxa weeye shaqaaleysiinay arrimahaas oo dhacda idin sheegayo. runtii waxa weeye kambanigana ka caawiyo. marka serviceda iyo businesska aan bixino waa noocaas. aad baa umahadsantahay Geele. waxaa nala wadaagtid historigaaga iyo intii aad businesskan ku dhex jirtay, maxaa fursada oo suuqyadan online-ka aad ka aragtaa oo bulshada la wadaagi kartaa? waa mahadsantahay. runtii waa su-aal aad u fiican, markastana waa lasoo weydiiyaa. intaana aan online-ka aan u gudbin, waxaan jeclaan lahaa horta inaan faham guud aan ka bixiyo. aan isku day ilaa 3 daqiiqo inaan kusoo koobo 4 daqiiqo online businesska qaybuhu u kala baxbaxo si dhalinyarada xiiseynayso, maadaama filiye badan ay yihiin. qof kastaba fili baa laga yaabaa inuu kusoo baxo. waxaa laga yaabaa fili aad jeceshahay inuu waxa weeye qofku uu garan karo, laakiin waxaa laga yaabaa fili adag inuu qofku galo uusan xiiseynin ama passion uusan u ahayn. marka waxaan isku dayay inaan soo koobo 9 waxa weeye qaybood keliya buu online-ka businesska adduunku kala baxaa. qaybta 7 waa kuwa waaweyn oo mostly waxa weeye aan dhalinyarada kula talin. 2 waa 2 yaryar, laakiin mostly waxaan dhihi karnaa waa xaaran oo waxa weeye dadkaas aan islaamka ama ku shaqaysan karo. laakiin 9 baa loo qaybiyaa in general. businesska wuxuu noqonayaa e-commerce waxa la dhaho. e-commerce waa businesska ugu ballaaran waxa weeye online businesska maanta. runtii waxa dad badan ay ka faa'iideystaan. waa maxay marka e-commerce? e-commerce waxa in product ama service lagu dhex iibiyo online-ka iyadoo la isticmaalayo internet
intaa keliya baa waxaa lahaa e-commerce marka product wuxuu noqon karaa digital product ama physical product tusaale digital product wuxuu noqon karaa sida buwaagta online-ka kale koorsooyinka oo kale coaching qofka hadduu online uu ka dhex bixinayo ama surface waxa way shirkad bixinaysa waxaasoo dhan digital products bay noqon karaan kuwa hadda aniga aan ku dhex jiro waa digital products sidoo kale waxaa jiro physical products waxa way inuu qofka iibiyo inuu store furto sida Amazon oo kale waxa way Alibaba intuu qofka uu ka soo adeegto alaabtaasna sii iibiyo ka sii macaasho marketingkiisa wixiisana uu qabsado asna waxa way business aad runtii loogu jira way marka guud ahaan businesska waxa la isku dhaawaa e-commerce waa business ka dhaco waxa way internetka kaas waa mid businesska labaad kaas waa mas'uuliyad badan buu leeyahay waxa mostly maalgashi buu u baahan yahay ama si mataqaanaa shakhsiyan qofka naftiisa ha u maalgashto oo skills xirfada ha barto oo wax kadibna ka sii business ka sameeyo ama qofkii ha soo adeegto intuu China iyo waxa way Turkiga intuu badeecada ka soo gado ha sii iibiyo waa mostly maalgashi marka xoogaa uu yara kharash badan yahay business ka labaad waxaa la freelance waxa way qofka soo gurigiisa joogo inuu waxa way uu shaqaysto kaliya qofka marka waxa looga baahan yahay qofka inuu barto xirfad tusaale qofka wuxuu baranayaa sida loo sameeyo website-yada sida loo sameeyo logooyinka graphic design-ka turjumaanimo sida waxa way marketing-ka waxa way dadka Facebook iyo Google iyo shirkadaha iyo business-yada yararka looga caawiyo waxaas oo dhan buu qofku baranaya adiga just skill buu qofku baranaya skill-kaas buu sii iibinayaa soo mar qofkaas wuxuu u baahan yahay computer iyo internet waana remote work way qofka meel kasta adduunka joogo buu ka shaqaysan karaa oo meel waxa way inuu joogo kaliya kuma xirnaanayso waa freelance baa lahaa ayadana waa laga faa'iideystaa freelance waa sida weyn adduunka waxaa kamid ah Fiverr iyo Upwork qofka skill buu soo baranaya website-yadaas buu iska diiwaangelinayaa surface-kaas buu qofka bixinayaa adana client-iga oo soo dalbanaya tusaale kale ama kale wax ku dhahay website ii samee soo marka orderka waa iga qabanaysaa website baa ii sameynaysaa waa ii soo deliver garanaysaa online bay ka dhacayaan ma qofka marka skill-kaas u baahan inuu barto business-ka saddexaad asna online-ka laga faa'iideysan karo waxaa kamid ah waxa loo affiliate marketing waxa weeye shirkadaha sida Amazon oo kale ama shirkado kale waxa weeye international in productigooda ama service-kooda aan u xayeysiino annaga xayeysiinino markuu qof gato productigaas oo ka dhex gato waxa weeye xayeysiiskayga through my link-kayga ka dhex gato sale markuu dhaco shirkadda Amazon oo kale commission bay siinaysaa business-ka waxa la affiliate marketing waxa weeye mostly affiliate program-yada shirkado waaweyn baa iskale oo international adduunka waa lagu shaqeystaa faa'iidana waa lagu aniga xataa runtii waa sameeyaa tusaale book baan soo iibsanayaa bookta mataqaana Amazon laga iibsado kale oo best seller ah ban review ka bixinaya ama article baa ka soo qoriyaa soo waxa la yahay marka article dhameeyo qof hadduu book ku qanco linkiga ka iibso marka waxaan iska diiwaan gelinayaa waxa weeye shirkadda ama waxa weeye store oo priority-ga yaalo wuxuu rabo ha noqdo affiliate programs baan join gareynayaa link gaar aniga baa la siinaya soo qof kastoo linkiga ku dhuftaa waxaa loo redirect gareynayaa website-ka shirkadda weyneed soo marka adiga meesha kuma dhex jirto qofka hadduu marka order ka dalbado waxa weeye kuma oga laakiin commission baa helaysaa commission macnaheedu ma ahan qofka in priority lagu qaaliyeynaya ee shirkadda adiga ku garatay priority-ga isla qiimaha kale uu ku yaala xataa hadduu linkiga soo raacin buu ku gadanaya anyway affiliate marketing baa la business runtii aad u fiican weeye keena afraad walaalay waxa la network marketing xoogaa uu soo shabahaa laakiin watan uu ka yara balaaran yahay network marketing waxa weeye waxa ku biirisaa shabakado waaweyn waxa weeye oo waxa weeye mataqaana company ah isaga wuxuu uga duwan yahay network marketing marka ku biirisa shirkadda wuxuu ku leedahay marka hore account baa lagu furiyaa ama kootaas lacag baa dhiganaysaa deposit bay mustala sameeyaan tusaale kale network marketing waxa kama shirkadaha xaysiyo kale waxyaalaha mataqaana productiga health-ka sida gym-ka kale productiga herbal life shirkada loo baajirto I think Soomaaliya shirkad caana baa musoo dhalinyarada isticmaalaan magaceedu hadda igan forever miya la living product asaas waa ku arki jiray waa inaad deposit dhigataa dad waa inaa marka shirkadda u keentaa marketer baad ka mid noqonaysaa promotion waa inaa u samaysaa dad waa inaa linkiga kusoo xirtid qofka productiga sii gata ama commission baa laga qaadayaa markaas ilaa 100 qof haddii linkiga hoos tagto recurring commissions baa ku soconayo oo ayadana faa'iido laga sameeyaa mustali wadamada qurbaha baa runtii ku badan keena shanaad waa anigu midka runtii u jeclaa dhalinyaradana haddii aad rabto inaad online business samaysaan mar walba quality waxa weeye content creation business la dhaho industry-ga inay soo gashaan content production-ka oo ah in waxa weeye muuqaalo la sameeyo maanta muuqaalada saa ognahay waa waxa weeye toolka ugu adag oo la isticmaalo dhankaas haddii siyaasadda noqoto haddii noqoto business iyo haddii dhankaas noqoto waayo fariimo
baa gudbinaysaa businesskaagana runtii hadduu kuu qarxo waxa weye ama influencer aad noqoto social media influencer noqotid ama companiga magaciisa la barto waxay noqonaysaa faa'iido badan aad siisa marka content creationka aniga 2020 ka bilaabay waxaan furay YouTube channel marka igu adkeed sababta YouTube-ka u furiyeyna waxay ahayd in waxa weye business sameeyo soo marka mindsetkaaga bay ku xiran tahay ama manhagaaga markaad Facebook soo gelaysa ama markaad YouTube soo gelaysa dadka waxay ka aaminsanaayeen berigaas in mataqaanaa qofku waxa uu nolosha ka dhaco kale berigaas ahayd in YouTube waayo dadka lagu barto YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo waxaas ka hayan dad waxa weye siyaasadda iyo dadka isku dhadhago laakiin caqabado badan baa laga yaabaa qofka inaad kalmad okay aniga aqooyahan baa jaamacad baa kasoo baxay YouTube ma soo fadhiisan kara laakiin mindsetkaaga hadduu yahay business samaysid content creationka adduunka maanta waxa weye tool aad loo isticmaalo weye marka saddex qabood baa loo qaybiyaa content creationka inaad muuqaalo samaysid videoga aad soo gelisid TikTok iyo Instagram-ka iyo YouTube-ka waxa la sameeyaa in article soo qortay blogging aad samaysid by the way xabad waad u dooran ka dhawaana isku qaadan ka dhaa kulli aniga waxa weye saddexda waa sameeyaa YouTube waan sameeyaa blogging waa sameeyaa 2020 hadda waxaan qorayaa article oo clients badan baa Google-ka iga soo raaco businessadana waxa weye faa'iido aan ka sameynaa dadkana value aan ku soo kordhinaa information ma siinayna kan saxna waxa sawir in la soo geeyo Instagram-ka iyo waxa noocaas sawirada by the way business iyo information iyo value qosayo weeye maan sawir iska caadi marka industry-gan content creation si xab yaraad baa idinku taliya haddii aad rabto business online samaysaan waxa weeye waa the fastest way and deeper oo wali bila lacag business marka la sameynayo in traffic la helo lacag lagu bixiyo tusaale kale inaad intana campaign samayso Google-ka Facebook-yada aad waxa weeye lacag ku bixiso dad badan ku soo reej garaya in dadka caanka ah Facebook iyo TikTok isticmaalaa oo influencers ana lacag siino dhahno okay shirkad baa furnay noo xaysi Facebook-geena noo soo galay broadcast maanta keenay lacag baa ka baxayso laakiin marka adiga content waxa weeye creation-ka samaysid aad page-kaaga leedahay muuqaalo qurux badan soo gelisid ama article cajiib aad runtii qortid ama waxa sawirro soo gelisid dad badan iyo clients badan baa ku follow garanaya sababta sirtan haddii aan idin sheego marka business bilaabaysid dadka marka ina value wayna kusoo kordhisaa dadka si bilaash marka hore soo YouTube baa furaysa laguma yaqaano de isla maalinka business ma bilaabi kartid boqos cid ku yaqaana ma qofku aamini male soo marka waxa la sameeyaa dadku waa la isbaraa ilaa 6 bilood kale dadka value baa lagu soo kordhiyaa oo wax information anfacayo ama qoraal ha noqdo ama video ha noqdo niche korban ha noqdo niche isku maahan waxa weeye ka jecesha adiga ku dhex jirtid hadii waxa weeye tusaale hadii qof gym xiisayo kala aad tahay aad ina macallin gym noqoto mustaqbalka in lacag ka samaysid aad oo productive gym-ka iyo gym in laftigiisa in aad furtid iyo waxaas oo dhan waxa weeye Herbalife-ka inaad si dhaxgashid soo anaga wax samaysaa 6 bilood oo horeyso kale dadka value ba ku soo kordhinaysaa iyo waxaan baa uga sheekeynaysaa qaabka loo sameeyo si bilaash baad uga sheekeynaysaa midna waan idin sheegayaa intiina dadka hore iman qofku waa inuu laftigiisa value isku soo kordhiyo oo waxa wayna ka muuqdaan oo qofku markuu inuu trainer soo qaataa koorsooyin international soo qaataa oo lib qaab online maanta iska foto wax barashada saana website-ka Udemy oo kale every skill adduunka u baahan tahay lacag baa ku helaysaa qaar baa $12 lagu helaa skill kasta soo marka qofka inuu waxaan soo fahmo oo asaga laftiga waxa weeye ka muuqanaysa markuu dadka hor istaagayo beerintu u baahan marka waxa kuu fudaanaysa in dad badan ku soo follow garayaan subscribe ku siiga then mustaqbalka 6 bilood kadib marka dad badan ku bartaan oo kale markaas waxa bilaabi ka dhaca business-ka dadku way ku aaminayaan waayo waxaan wax kugu yaqaanaan way value badan si bilaasha ba ugu soo kordhisay mana value inuu qofku noqdo way inta lacagta aad ku ordin marka taasna waa idin qolo talinayaa keena lixaad wuxuu noqonayaa in trading and investment asna waa la sameeyaa waa forex dhalinyaro badan oo ku jira waa arka Soomaaliya waa kan u badan oo hadda Soomaaliya dhigi kara online business la sameeyo forex iyo YouTube ka islaya soo marka trading investment waa la sameeyaa forex oo kale waa laga trade garaya waa business sax ah lacag baa laga sameeyaa laakiin wax barashay dadaal u baahan inkastoo uu yahay volatile market oo marba dhan u boodo oo xitaa kuwa forex ugu khabarta adduunka maalinta khasaare galaan soo waa business noocaas barasho u baahan crypto laftigiisa xabyaal mataqaana waa la trade garaya oo daily mataqaana trading bulaya sidoo kale waana mining lagu sameeyaa waa la qotaa investment-gana wuu raacayaa waa number 6 weeye qofka inuu maal gashto sida mataqaana stock market ku kale aniga aad baan runtii u maal gashaa waxaan kaloo maalgashi ku sameeyaa waxa loo cryptocurrency oo laga yaabo dad badan ay aaminsan laakiin mustaqbalka Soomaaliya xataa waxa jirta lacag badan ka sameeyay 2011kii Soomaaliya gataa jirta Bitcoin-ka oo $100 ka bixiyay haddana waxa weeye 6 Bitcoin 7 Bitcoin haysto almost waxa weeye lacag badan oo $200,000 haysto marka waa maalgashi sax la sameeyo weeye stock market-ka crypto ama hadda arti business Soomaaliya sida waxa weeye bangiyada Soomaaliya way bixiyaan saamiyo maalgashi waa maalgashan ka dhaca business-kan labadaba waxa weeye waxa SaaS baa la dhahaa software as a service baa la dhahaa waa inaad bixisid waxa weeye service qaab software ahaan inaad u bixisid
tusaale oo kale Microsoft Office oo kale service-ka bixiso sanadkii Microsoft Office ani kule ana qaybta isticmaalo sanadkii waxa bixiya $100 inaan isticmaalo mataqaanaa Windows Office-ka caadiga waxa weeye dhowrka service bixiyaan ka $100 bixiya soo marka business-ka wuxuu hoos geliya SaaS marka application baa sameyn kadhaa website baa sameyn kadhaa subscription ama mataqaanaa baad ku xiraysaa qofka inuu bishii inta iska bixiyo $1 $2 dadna qofkii value baa siinaysa ama service ama waxa siinaysa wax noocaas saas bala waa la sameeyaa toddobada ugu weyn waana xalaal muslim marka la sameeyo hadii aad marka hore si qaabdan aad u gelin laba hoostaga marka oo ayagana mataqaanaa la sameeyo waa xaaraan muslim marka diinteena afirino waa gambling iyo qamaarada iyo kasinooyinka ayagana online ka hoostaga bay dhahan lacagana waa laga sameeyaa kan toddobaan kan sagaalaan waxa weeye zarfiyada oo sidii waxa jira zarfiyada sameeyo runtii asaga waxay ku leeyihiin article waxay ku leeyihiin documenti laga yaabo file 20 page bay ku leeyihiin zarfiye ku samee waana sax lacag waa laga helaa laakiin lacag aad u yar weeye laga yaabo in saacad ay ku siiyaan waxa weeye $1 oo waqti bay ka dilaan soo markaas wax u qalma ma ahan business-yadan kale oo leeg marka intaas ba ku soo koobaya waa tusaaleelkan ba online loo qabiya qof kasta meeshu jecel yahay buu ka gali karaa buuna ka bilaabi karaa muslim aniga gaar ahaan waxaan ku jiraa content creation waan ku jiraa muuqaalada sameynaa article waan qornaa saan dad aan u gaarno business-kana loo barto e-commerce-na qaybtii dambe markii waxa weeye dadkana barteen oo follow aan helnay baa business e-commerce sameeyay oo iskuulkay in ka badan 2,000 arday baa ka baxay shirkadeedana website-ka dad badan baa website u sameeyay maanta ilaa hadda heer waxaan go'aan shaqaalaysiin dhalinyaro badan labada qayb ku jira affiliate-kan waa sameynaa oo marka maqaale aan qorqoran oo kale wixii mataqaanaa dadka ka faa'iideysanaa kale aad ugu baahan barootigaas oo kale review aan ku sameynaa way gataan dadkana waxa anagana commission baa keenaa marka intaas baa ku jira iyo maalgashina asna sidoo kale aan ku jira marka saaxiib waxaad dhigi kartaa faham guud waa ka heshan qaybaha kala duwan ee online business-ka cabdiraxmaan aad baa u mahadsan tahay waxaan filayaa si fiican baad maaragtay noogu sharaxday fahamka guud ee suuqa online-ka iyo qaabka u shaqeeyo iyo sababuhu u kala baxaba waqti aad u qurux badan baa noogu soo koobtay saaxiibada dhalinyarta halkan ku jirta oo barnaamijkan qaybta ka ah barnaamijka qayb ka tiin kusoo dhawaada ciwaanka saad uga jeedaan barnaamijkan halkan waxaan ku falanqeynaynaa fahamka suuqyada online-ka ah iyo sida ay u shaqeeyaan waxaana nooca suuman caaway khabiir arrimahan ku takhasusay muddo badan kusoo dhex jiray cabdiraxmaan geelle oo ay inta badan dadku u yaqaanaan geelle bashiir oo ah aasaasaha geelle digital service marka waa soo codsan kartaan mikrofoonka dooda qaybaad ka tihiin su-aalaha waa ku contribute garayn kartaan cabdiraxmaan ninka la yidhahdo geelle bashiir faham guud baan ka qaadanay aniga si gooniya haddaan comment ku darsado waxaa ii anfacday business kastoo qofka uu bilaabayo mindsetkiisa ku xiran tahay qofkan waxa uu businesskan ka rajeedayo waxyaabaha soomaalida inta badan ku fashilmatana waxaa ka mid ah in aanay soomaalida lahayn vision badan oo fog oo long time ah laakiin qofkii doonayo inuu businesska si jawaab uga helo muddo kooban inuu kaga faa'iido soo marka taasi maaragtay aad baan kaga faa'iiday oo inaad 6 bilood iyo ka badan baa u sameeyay businesska kadibna dadkii markay ku bartaan aad xagaas ka sii wadid cabdiraxmaan mar dhow dadkan su'aalaha u furi doonaa hadda hal su'aal kugu soo celiyo ka ganacsiga suuqa online-ka ahi door noocay ku qaadan karaa ama ka qaadan karaa habka shaqaaleysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur door noocay shaqo abuurka wadanka ka qayb qaadan karaa soo dhawaad cabdiraxmaan mar kale wallahi waxaan dhigi karaa waxa weeye wax badan buu ka bedeli karaa waxa weeye shaqaaleysiinta shaqaalaha waxaan dhigi karaa waliba aniga hadeer businesska markaan bilaabayay runtii isma lahayn dad baa shaqaaleysiinaysaa waxa weeye si dhaqso ah oo dhalinyaro badan baa maanta fursad siinaysaa laakiin waxa weeye muddo waxa weeye 2 sano kadib waxaa noqotay in ilaa 5 qof hadda ilaa 4 ilaa 5 qof in kamidga u shaqeeyaan oo dhalinyaro badan aan shaqaaleysinay marka of course waxa weeye anoo businesska waliba waxa weeye small business yahay Soomaaliya markii la tago small buu noqon laakiin wadamada hadda aad joogo waliba small oo micro business bay noqon daraan halkan marka aan ka qaadanayno waxa weeye laysanka haddii intaas qof aan shaqaaleysiinay oo waxa weeye mushaar fiican waliba qaybtooda ay qaataan oo waliba dhalinyaro aqoon-yahan oo mataqaan engineer oo waxa weeye website si loo develop karo application si loo develop karo bartay aan shaqaaleysiinay waxaan dhigi karaa qof kasta waxa weeye business la imaada dad badan sidoo kale uu shaqaaleysiin karaa marka wax badan buu ka bedeli karaa
waana waxa weeye anaga waliba kuweena way ka duwan yihiin waa remote work weye dadka noo shaqeeya anaga waa remote work weye dad meel aan inta xafiis uga furnay aan fariista dhahnay ma ahan marka laga reebo meesha waxa weye officekeena guud kulli waxa weye qaybna waxay joogaan Kenya Soomaaliya iyo Turkiga bay kala joogaan waa remote work weye just waxa u dirnaa shaqada ay qabanayaan meeshan ma ayagoo joogaysan just internet iyo computer buu baahan qofkii skillka uu yaqaanaa marka xorriyad weeye waa freelancer remote work weeye waana meesha dhahan digital nomadka oo shaqada qofka maanta uu jecel yahay aniga gaaraan online maxaa ku doortay online aniga waxa ku doortay waa waxa weeye waa xorriyad markay reeyso dhaqaalaha xorriyad dhaqaalaha xorriyad waqti ku siinaya wadamadan reer galbeedka xamaali baa runtii la galaa shaqooyin adag weeye 8 saac baa meesha lagu waxa weeye baa meel ka shaqeynaysaa saacadna waa soo socotaa saacadna waa sii socotaa sanadka dhan waxaa lagu siinayaa bil soo sanadka dhan bil fasaxa inta kale halkan waa inaad joogtaa shaqaysta marka aniga aad baan runtii u dhibsaday ma jeclaysan hadda alxamdulilah waxa sanad kor baan halkan business ka diiwaan geliyay just computer internet baan u baahanay inaan maanta anaga aan shaqeyno xorriyad baan runtii aad u fiican weeye marka xorriyadda aniga aan helay haddana ilaa 5 kale dhalinyarada baa runtii xorriyad waxaa xasiinay waqti oo maanta meeshan ayagoo joogaysan marka waa fursadaha oo runtii uu leeyahay online businesska shaqaalaysiin badan ka dhaxay waliba shaqaalaysiinta uu sameyn karo waxa weeye waa mid qofka uu shaqo kale u qabsan karo anaga hadda laga noo shaqeyso waxa laga yaabaa in shaqooyin kale ay qabsadaan haddana waxa weeye markuu projectiga soo dhaco inuu mataqaana galinka dambe oo kale habeenka who never knows cidna ma oga halka uu shaqada ka qabto marka waa shaqaalaysiin fiican marka noqoto xorriyad waqti iyo xorriyad dhaqaale oo maanta waliba gaar ahaan waqtiga markaa fiiriyo xorriyad waqti fiican ay tahay cabdimaan aad baa umahadsan tahay waxaa soo dhaweynayaa dhalinyarta kale ee barnaamijka iyaguna qaybta ka ah gacanta soo taagta qofkii comment haya iyo qofkii su-aal haya intaba waa idin soo dhaweynayaa haddii ay jirto qof comment haya ama su-aal raba inuu cabdiraxmaan weydiiyo cabdimaan si guud baa u fahanay barnaamijkaasi iyo sida maaragtay uga qayb qaadan kara shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed marka fahamkaasina waxaan filayaa in dhalinyarta halkan ku jirta ay kulligood fahmeen su-aal kale haddaan cabdimaan kugu celiyo adoo mahadsan qofka Soomaaliga ah ee hadda Soomaaliya jooga raba inuu hadda businesskan bilaabo waxa ugu horeeya u baahan yahay ama asaaska u ah businesskiisa maxay noqon kartaa waxa ugu horeeya aan dhalinyarada mar walba kula taliya waxa weeye waa inuu qofka uu naftiisa uu maal gashto waxyaalaha la maal gashto waxa ugu fiican runtii waxa weeye waa qofka naftiisa tusaale kale qofka inuu xirfad barto intaada online soo gelin qofka inuu skill barto yes kuriyan jaamacadaha ka soo baxanay knowledge baa soo baranay wax badan baan aqaanaa laakiin online industry-ga waxa weeye siyaalahaas in laguma shaqeysto waa inuu qofka skill ka bartaa waliba waxa weeye xirfadaha runtii mataqaanaa marketplace-ka high demand-ka ah oo lacagaha badan u galo qofka inuu marto marka qofka inuu number 1 qofka inuu xirfad bartaa lambar 2 marketkan runtii qofka inuu buug badan u akhristaa waliba mataqaanaa entrepreneur-ka iyo waxa business qusay startup-ka iyo arrimahaas oo industry-gaas faham badan u haystaa talahan leena marka waxa ay dhageystaan tusaale kale waxa weeye podcast-yada garan ku English-ka oo master waxa weeye idea badan baan ka helaysaan oo runtii aad u tiro badan waliba businesska marka aan fiirino Soomaaliya runtii aad ugu banaayay blue ocean baa dhahnaa marka Soomaaliya fiirina garan businessada online businesska waayo dad badan kuma jiraan reer galbeedka way buuxaan businessada online businesska laakiin Soomaaliya iyo East Africa waxa dhahnaa waa blue ocean waa business balaaran Soomaali qofka idea qofkii helaa maanta idea fiican qofkii maanta helaa wadankii waxa dhigi karaa business kasoo ka bilaabi karaa online faa'iido badan wiilkan aan almost cidna uga horeyn soo technology casriga ah maanta isticmaali xitaa maanta waxa laga faa'iideysan karaa ChatGPT oo shirkadda waxa OpenAI ay samaysay fursadahaas oo dhan hadaa weydiisid business idea ii sheeg waxa xitaa mataqaanaa geographical meesha aad joogtid hadaa u sheegtid wuxuu kuu sheegay ilaa waxa weeye mataqaanaa countless business ideas aad samayn kartid oo mataqaanaa shaqeeyay wadamadaas qurbaha ka shaqeeyay Soomaaliyana ka banaacin aan uga horeynin marka qofka naftiisa inuu maal gashto xirfado barto buug akhristo idaacadaha waxa weeye mataqaanaa businesska podcast-yada waxa weeye international-ka uu dhageysto ama koo Soomaaliya xitaa leeliyo waxa arrimahaas ka shaqeeyay taxadas baaruti kula taliyaa iyo sidoo kale mid ka soo go'do waxa weeye ugu dambeys waxa weeye qofka inuu sameeyo waxa la commitment waayo nin loo Denzel Washington wuxuu dhahay without commitment you will never start without
consistent you will never finish buu dhahaa qofka hadduu go-aan yeela waxaa ma bilaabi kartid aniga markaan business bilaabaya kow waxaa ka bilaaba YouTube runtii aad baa u baqay YouTube iyo bilaabasa YouTube dad qaaqlayaal baa ku jiro dad siyaasadda ka shaqeeya dadka waxa waa ku ceebowsaa ninkii wax soo bartay maxaa ku dhacay baa leeyahay marka go-aankayga laakiin waxa inaan business bilaabo so only way aan u mari karo waa inaan YouTube dad igu soo xirmaadeen aan lacag ka marka community-ga waa kan ugu muhiimsan go-aanka ama actionka ficilka waa kan ugu muhiimsan qofka inuu rabo hibadiisa waxa weeye dreamkiisa inuu soo bariyo inuu banaanka iskeeno tan ugu adag taas ka adag waxa weeye kana muhiimsan waxa weeye waxa dhan consistency ama joogtaynta waayo suuqyadan waa isga volatile market weeye marba laga yaabaa adoo wax badan ku jinaada cidna ku dhageysan ama wax business ku qarxin marka dadka mostly waxay dhahaan 90% halkaas bay ku niyadjabaan dadka laakiin successfulka guuleysto 10kaas bay ku daraan oo mataqaanaa way sii adkaystaan ilaa wixii hadafkii ka gaaraya marka 10kaas hadii aad isku dayno kulligeen final uu ku qarxaya faa'iidana waa sameeyay marka waxa way community ecosystem soo kale ayaan rabaa kula talin lahaa aad baa umahadsantaha cabdiraxmaan markaan waxaa su-aal siinayaa haddii uu qabo sakariya soo dhawow sakari may maqashaa sakariya waxaan filaya cabdullahi inuu soo sakariya ku maqlin horta waa in salaamay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta islaamka aynu ku salaamay iyo wallahi waa run su-aalo badan baan qabaa laakiinse su-aashii hal su-aal horta baan weydiinaya dhammaantiin ama ninka la dhaho geelle waxaan markii la baranayo qofkay ku adag tahay inaan qofku inuu laba qaybood u kala qaado wixii markuu barto cilmiga uu barto iyo inuu wixii lacag ka helo oo si caadi ugu shaqaysto maxaa u fududaynaya qofku inuu waxaan markuu barto uu ku shaqaysto oo wixii uu ka dhigto shaqo ama uu si uu u joogteeyo si uu isaga qof ahaantiisa qofku isku dhiso maxaa u fududaynaya haddaa su-aasheeda fahantay halka igu soo maxaa u fududaynaysaa ma inuu halka igu soo waxaa jira mataqaana horta dhalinyarada inteena dadkeena badan oo soomaalida ah waxaan markay bartaan qofkii markuu koorsooyinkii soo qaato uu kasoo baxo soo dhameeyo haddana waxaa ku timaada problem kalaa ku timaado caqabad wixii ka hor istaagta wixii qofkii inuu waxba ka heli waayo ama muddo badan uu sii wadi kari waayo dadkeenana inta badan dee waxa weyna wada hunguri oo meeshii markii hunguri kaaga soo dhici waayo waxba lacagaa ka samayn weyday wixii waad ka daalaysaa waad nacaysaa niya marka haddaan aniga shaqsi ahaan iska hadlo waxyaalo badan baan bartay kriptada iyo forexka iyo koorsooyin badan baa qaatay marka weli independent weli ma gaarin oo mataqaanaa wixii markaste waxa dee lacag badan markaysa kaa soo gelayn waqti badan ma siinaysa oo waxyaalaha kaloo mataqaanaa kharash kaa soo gelaya ama sida shaqada caadiga wixii waad ka mashquulaysaa marka maxaa ugu fudud oo qofka ku kaxayn kara inuu waxaan sii wado oo joogteeyo waa ku fahmay waxa weeyaan walaala burka aad maasta runtii waxa dhigi karaa qofka marka hore intuu online business galin baa inuu doortaa wuxuu passion ku yahay hadayna waa sheegay waxa weey man of value waa inuu qofka noqdo intuu noqdo mataqaanaa man of money ama man of waxa weey attention qofka intuu lacagta waxa ka fikirin waa inuu dadka value ku soo kordhiyaa dadka sidee value ugu soo kordhin karaa markii xirfadda waa taqaanaa passion waa ku tahay marka waxa passion ku tahay inuu qofka bartaa oo qofka wuxuu jecel yahay inuu qofka bartaa hadii qofka wuxuu jeclaan oo barta asoo isla meesha lacag baa ku jirto waxa weey joogteyntii baa ka dhumayso ma joogteyn karo waayo wixii qofka ma jeclo kuma raaxaysanayo laakiin qofka markuu joogteeyo qofka wuxuu jecel yahay xitaa hadduu lacag helin waxa weey wixii uu joogteynaya marka tusaale ku siinaya blogging waxa loo baa waxaan bilaa 2020 inaan kala soo qano Google-ka hadafkaygu wuxuu ahaa inaan lacag ka sameeyno dadkan aan soo marka website ka samaystay dadka waa u sheegay artikalaha qoray muddo 6 bilood bloggiga artikalkayga bloggiga waa la soo aqbalay asensiga blogging maadi waxa weeye in internetka aad wax ku soo qortid dadna waxa sida YouTube-ka xaysiiska loogu furo website-yadana waa loo furaa laakiin shuruudo leeyahay marka video ka sameeyay markii la aqbalay lacagta la bilaabay just inaan waxa lacag ka sameeyay waxa qoliyaas inaan lacag ka qaato imaaray maadaama artikalaas marka waa la shargareeyay marka commenti baa dhalinyarada waxay ugu dhaheen waxaan nabar skill-kan nabarna fahansiin video galaatan daqiiqad lagu baran karo waxa weeye wax dheer ilaa website qofka uu samaysto ilaa mataqaanaa xaysiis qofka loo furo shuruudaha la rabo
marka waxaan inaan koorso ka sameeyo dadka markaan igu dhiirigeliyey in mataqaanaa barnaamijka aan ka sameeyo koorso marka horena baashankayga ahayd waxa weye business ahaanna waa u rabay laakiin asensigaas waxa weye inuu waxa weye bositkeeda lacag ka sameeyo laakiin haddana business labaad baa iga furmay oo passive income weyn oo xitaa noqday asensiga ka weyn oo ah inaan iskuul furno aan dadka aan ku barno waxa weye ilaa 1,200 ardayna waxa weye aan barnay qayb kamid hadda ay ku shaqaystaa marka kow qofku waa inuu doortaa marka hore wuxuu baashan ku yahay ama wuxuu jecel yahay waayo aniga hadda kor waxaa wax la forex baan isku dayay 2018kii markii dhalinyarada ay aad u kacsanayay 17kii ilaa 16kii waa ku dhex jiray runtii koorsooyin badan baa kasoo gatay oo qole xataa cadaan aan soo sameynay waxa weye wuu ii shaqeyn way aniga because ma ahayn waxa weye filligayga waayo kuma raaxaysanin inaa lacag ka samayso wax koos waxaa rabta inaa ku raaxaysatay inaa waqti u haystay ilaa wax aad sii baratid ilaa wixii buwaag badan aad ka akhrisid aad sii dabageshid markasta aad baarbaartid laakiin qofka waxa isku khasbayo way adag tahay inuu marka waa kasoo bedeshay e-commerce baan usoo gudbay e-commerce baa ii shaqeeyay iyo mataqaanaa waxa weye businesada kale aan hore u sida mataqaanaa freelance marka hore aan ku bilaabay content productionka marka ta kuu shaqeyn weydaa oo waxa online kuu shaqeyn wayaa waa inaad waxa weye qofka uu kasoo gedistaa marka horena laakiin baashanka way ku xirtaa marka taas baan dhihi karaa walaal marka su-aashaada waa mahadsantahay walaal aad iyo aad baan mahadsantahay walaa waa runtii mataqaanaa qofku horta baashinkii waxa keenay mataqaanaa dadkeena inta badan qofkii wuxuu jecel yahay qofkii iyo wuxuu rabo markuu waxaan soo dhex gala waxa way ka qaldamaysaa wuxuu jecel yahay buu garan waayaaba run ahaanta hadda sida adigu sheegtay waxa kuu shaqeyn waayay forex waxyaalahaas waxaana kuu shaqaysay e-commerce iyo waxaas sidoo kale si lamid aniga waxa ii shaqeyn waayay e-commerce iyo waxyaalahaas kabacdi markaa xagga forex iyo kiribtada xagga imid way baa ii shaqaysay oo hadda iyadaa ku dhex jira mataqaana waxyaalahaas e-commerce iyo waxaas waa iska badayayba faraha ka qaaday marka waa run waa muhiim way qofku wuxuu jecel yahay inuu doorto inuusan yani isdhiibin oo wixii uu burka aad baa u mahadsan tahay waqti geliyo waayo de waxaanu ka rabo mustaqbal waxa aad baa u mahadsan tahay burka sharaf baa leedahay si fiican baa u qaatay barnaamijka speakerka xiro inta qof kala hadlayo si privacy-gana ilaashitid sababta waxa weeye qofku marka qof kala hadlayo haddii speaker ku furanaya xoogaa codkii baa wuxuu noqonaya clear aad baa u mahadsantihiin asxaab kale dib nooga soo biirtay caawa barnaamijka waxaa noogu casuuman geela bashiir barnaamijka ciwaankiisu waa fahamka suuqa online-ka iyo qaababka looga shaqaysto waxaana noo casuuman cabdiraxmaan bashiir oo geela bashiir loo yaqaano oo ah asaasaha geela digital service inta badanna ku shaqeeya barnaamijkaasi oo aad taqaanaan youtube-ka iyo meelo kale instagram-ka iyo ka garanaysaan saaxiib yar soo dhawaada barnaamijkana waa ka qayb qaadan kartaan commenti iyo aragti iyo su-aale intaba weydiin kartaan haddana haddii ay jirto qof kale oo cabdiraxmaan su-aal weydiinaya mikrofoonka wuu soo qabsan karaa cabdallah iyo bashiir akhyaarta dhammaantiin aad u mahadsantihiin runtii program aad u wanaagsan wax badana laga faa'iiday waxaan rabay inaan ku biiriyo su-aal actually ma qabo si guud ahaan marka laga hadlayo online businesska aad baa loo dhiirigeliyaa wadamada qaarkood missions badan bay leeyihiin dhalinyarada waa loo soo dhaweeyaa intaas oo publication baa laga sameeyey waxaa lagu caawiyaa crowd fundingkii meelihii maxaa la dhahaa ee u sahli lahaa sidii ay u sameyn lahaayeen wax la dhaho business plan oo dhammaystiran maxaa yeele qofka haddii uusan jirin wax ku hagaya yani sidii u shaqey lahaa hal maar yani sidii traditionalka oo kale ma ahan uu ka duwan yahay marka maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u wada daneynayaan haddana waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in la helo wax oo ibafur u ah tusaale ahaan oo guidelines la qoro la publish gareeyo afka Soomaaliya ku qoran waa sax waa mahadsan tahay walaal mawlid run ahaantii horeyna ari waa sheegay dee qof kastaba inta uga aadan buu arrintaasi ka qaban karaa 2020kii baan ugu bilaabay inaan article qoro waxa weye oo value dadka kusoo kordhinayo oo inaan ka shaqeyno online industry-ga noocuu yahayba aan kasoo hadalno kuwa xataa aan aqoon waxa weye aan isku day inaan soo baarno sida ka sameyno aan dadka usoo gudbino
ilaa hadda laba qof baan ku qornaa website-ka artikalada oo maqaalo aan kusoo gudbinaa soo marka ilaa 2020 ilaa hadda 3 sano almost artikalaan soo gelinaa internetka oo ah article 2020 aan qornay baa laga yaabaa in maanta computer ka soo bixiyo oo qof dhalinyaro Soomaaliyeed uu ka faa'iideysto asoo aniga aqoon hadda markuu ku qoray ciwaanka Google-ka waxaas waa maxay inuu runta u soo baxo waxa weeye waana business fiican lacagna waa ka sameynaa xaysiimaas anaga lacag baa naga soo at the same time qofkii value ka soo korinaa marka waxa dhigana waa win-win situation marka intaas baa runtii dhigi karaa waxa weeye waa wax qoraal ah waa sameysaan dad badan waxa dhigi karnaa way ka faa'iideysan karaan cabdi waxaan aad u mahadsan tahay sidoo kale mawliidna waa mahadsan yahay ama haddaan su'aal ku weydiiyo ma jirtaa inta badan caqabado la soo gudboonaada dhalinyarada ama qofkii raba inuu barnaamijkan e-commerce ha ahaado ama digital business ha ahaado qofkii raba inuu soo galo ma jiraan inta badan caqabado qabsada oo aad kala talin lahayd way jiraan caqabado qabsado caqabadaha oo kuwa qofku qaarna uu ka bixi karo qaarna adagta qofkan uu ka baxo sababtoo kale dhalinyarada joogta East Africa iyo Soomaaliya runtii ardadina ay u badan yihiin caqabado waxa qabsado runtii waxa weeye laba caqabado aad u adag baa qabsado tusaale caqabada ugu weyn oo dhalinyarada Soomaaliya waxa kamid ah payment gateway-ga ama payment system-ka Soomaaliya international man uma diyaarsana website international-ka inuu waxa weeye qofka Soomaaliga uu intuu service bixiyo oo lacag ka heli karo macnaha payment-gaas runtii uma diyaarsana oo bangiyada Soomaaliya wali international ma aysan noqon inkastoo IPS bangi la dhaho waxa weeye iyo premierka waxa weeye sanadka u dambeeyay move fiican ay sameeyeen oo runtii waxbarashada ay soo galeen waxa bangiyada international-ka laakiin ilaa hadda ma arag qof lacag ku qaadanaya laakiin caqabad way tahay payment gateway-ga inuu qofka dhaho aniga service ka bixinaya laakiin lacagtii ma helayo soo maxaa ka faa'iidi karaa waa option fiican laakiin Soomaalida waxa dhacday nin tuur la soo saxda isaga yaqaan Soomaalidu already waxa weeye ayagoo haddana Africa joogo lacag way ka sameeyaan tusaale kale YouTube-ka ma ogola in waxa weeye AdSense-ga service-kaas Google ka bixiya alla AdSense-ga waa qolyaha YouTube-ka lacagta siiyo ma ogola iyo blogyada in waxa weeye bangiyada Soomaaliya lagu qaato laakiin Soomaali badan oo Soomaaliya joogo East Africa waxa jira million subscribers haysta haddana lacag ka sameeyo YouTube-ka laakiin Soomaaliya East Africa joogo marka maxay sameeyaan laba option bay sameeyaan ama anaga teamkan ugu xiran laba option baa u sheegnaa iyo haddii xitaa YouTube ahayn xitaa yahay website-da content sida Fiverr iyo Upwork kale qofkiina qof family qurbiisa joogo address-kaaga iyo banka waxa weeye website-ka ay ku xir qofkaas lacagta loo soo dirayo qurbaha joogo dan adiga family-kaaga way ama asxaabtaada waxa leedahay lacagta xawaalad iyo soo dir shaqadiina aad qabanaya ama YouTube-ka oo duubeysa ama website samayntii Fiverr-da iyo website bas ka diiwaan gelinaysa laakiin bangiga qofkaas kale waa gudbinaysa contradiction documents website-da qaar ma ogola oo magaca ku galaysid xataa inaad bedeshaa maadaama bangigaas iyo address-kaas qofka qurbaha joogo uu asaga leeyahay inaad magacaas runtii ku soo gashid weeye website-da qaar magacyo ma fiiriyo talabaadna waxa dhigi karaa waa access-ka website-da qaar Soomaaliya looma ogola oo mataqan ilaa isticmaalaan VPN wax la isticmaala VPN-kana wax mar dambe la iskaga daba imaado weeye qofka markuu xooga isticmaalayo laakiin website-da dhan maahan website-da badan waxa jira Soomaaliya ka shaqeeyo oo waxa weeye dhalinyarada ka faa'iideysan karaan waxa weeye laakiin sida Amazon oo kale sida mataqaanaa waxa weeye website-kan hadda ChatGPT oo kale way ayta qofka inuu Soomaaliya ama East Africa access gareeyo asoo isticmaalin VPN oo ka xiran yahay mataqaanaa totally marka labada caqabad way jirtaa laakiin dad badan oo wadanka joogo East Africa jooga website-dan ka shaqeysto lacag ka sameeyo runtii way jiraan oo caqabado runtii laga gudbi karo marka labada caqabad baa dhigi karaa waxa weeye way ka soo way challenge gareyn karaan dhalinyaradaas aad baa mahadsan tahay Cabdiraxmaan markaana waxa gacanta taagan Yaxye soo dhaw walaal Hello. Sakari ku soco Sakari Ay waan waa salaamay macaan Geele Bashir iyo Cabdullah waxaan qabay su'aal baan qabay inaan weydiiyo Geele su'aashaasi waxa tahay blogging-ka waxaan leeyahay blogging-ka lacag ku dhow ma laga sameyn karaa lacag ku dhow lacagta YouTube laga sameeyo karo ama Facebook oo kale su'aashaas aan rabay inaan weydiiyo Ustaad Geele Bashir Sakari walaal waa mahadsan tahay horta dadka international-ka markii noqotay annaga waa kala duwanahay saa ognahayba Soomaalida inay wax daawadaan iyo inay wax akhriyaan
waxa weeye shaki ma lahan soomaalida inay wax daawadaan bay jecel yihiin blogerada internationalka oo englishka masteri ah lacagaa youtube ka badan bay sameeyaan waayo dadka waxay jecel yihiin master inay wax akhristaan laakiin soomaalidina marka la fiiriyo inta aniga aan kusoo dhex jiray kolleyba youtubeka iyo blogga waxaa lacag badan mataqaanaa youtubeka blogga wuu ka lacag yar yahay waxa waaye soomaalida inay wax akhriyaan masteri ma badna laakiin at the same time ugu yaraan maalinkii $20 $30 waa laga sameyn karaa daily ah waa laga ilaa 100 Soomaali ka sameeyay daily oo sidii waaweyn ka sameeyo $100 maalinka kaliya ka sameeyo waxa weeye blog marka yes waxa weeye sida ma ahan waxa qoraalka in akhristaan in video Soomaali waxa ku baday inay fiidiyoda ay daawadaan aad u maasan tahay Cabdiraxmaan Iskriye ma jira qof kale oo waxaan filayaa Yaxya gacanta xogaa u taagan tahay haddii uu jiro qof kale oo aragti qaba ama comment bal soo codso Yaxya mikrofoonka furo haddii aad maqlaysid السلام عليكم waxaan filayaa in la maqlayo asxaabta si fiican ku soco iga raali ahaada waxaan meeting soo galay aniga oo magaalada ku jira sidaas laajkeed waxaan u maleynayaa in buuq laga dareemayo kastoon ka soo yaray hadda Yaxya soo dhawow waayahay khabiir geelo Bashiir waan salaamayaa ayaa asxaabtaba khabiir waxaas lahaa laba su'aalood oo kaliya aad weydiisid su'aasha koowaad waxa weeyaan qofku marka uu joogo Soomaaliya ama Somaliland oo kale aanu gaar ahaan Hargeysa joogaa new website-yada freelance Upwork iyo Fiverr inta u badan niman badan oo aan asxaabnahay nimanka Norway jooga oo kale iyo dhalinyaro badan oo Hargeysa joogta hadda new waxyaabahaas way noo yar shaqeyn waayeen waxaan garan weynay ma in systemka aan maraynaa uu khaldan yahay mise muxuu ahaay inay xaggayaga ay tahay horta su'aasha koowaad waa taas su'aasha labaadeen doonayay inaan weydiiyo waxa weeye khabiirka waxa weeyaan marka suuqa online-ka la joogo gaar ahaan muxuu ahaay Soomaaliya intee in leeg ayuu ka shaqeyn karaa sida country-yada kale uga shaqeeya international tusaale ahaan Belgium iyo wadamada uu geelo Bashiir joogo bal in video gaar ah ama uu ka sameeyay ama uu hadda rajeynayo inuu sameeyo bal isaga laftarkiisa naloo soo wadaago sida waxyaabaha loo abalay gareynayo ee systemka loo marayo iyo waxyaabahaasna su'aashaasna ayaan rajeynayay inaan weydiiyo intaas ayaan soo koobayaa walaal Cabdallah geele iyo teamka oo dhan waan salaamayaa khayr baan idin soo rajeynayaa Yaxya aad u mahadsan tahay su'aal fiican bay weydiisay runtii website-da Fiverr iyo Upwork dadkaan aqoon waa laba website oo the biggest waxa weeye freelancerska adduunka ay ka shaqeystaan oo maanta haddii aad Fiverr gashid service kasta u baahan tahay lagu qabto lagu qabanaya in website lagu sameeyo in logo lagu sameeyo in mataqaana xitaa in mataqaana ardada jaamacadaha dhigta xitaa in mataqaana paperadooda waxa weeye loo qoro in buugta loo qoro xitaa dad ku shaqeysto waa helaysaa oo lacag raadsinaysaa way ku dhameynayaan ayagoo sax marka waa adigu wixii freelancer ah baa laga helaa marka Fiverr iyo Upwork way kala duwan yihiin Fiverr-ka qofka Soomaaliya jooga access uu leeyahay inuu waxa weeye ka shaqeysto akoonkiisa oo ka samaysto service-kiisana uu taqaanaa halka ku bixiyo as a seller iyo as a buyer labadaba waxa weeye access-kaas qofka uu leeyahay Fiverr-kana wuu aqbalaa waliba bangiyada Soomaaliya asaga wuu aqbalaa uu ka duwan yahay mostly waxa loogu talagalay dadka India iyo Pakistan iyo Bangladesh freelancerada ugu badan halkaas joogaan maadaama lacag ay ku shaqeeyaan reer galbeedka way leeyihiin laakiin waxa barjo weyn ka qaadan lacag badan bay rabaan maadaama halkan shaqaalaha runtii lacag badan saacadii ku shaqeeyaan laakiin waxa laga yaabaa wadamada Asiaanka inuu lacag yar oo project inna caadi ahayn ku qabto marka reer galbeedka dhan baa ka faa'iideyso almost the shirkadaha ugu weyn reer galbeedka dad badan bay fire gareeyeen oo suuqa soo kalaho waxa weeye shaqada imaada lacag badan la siiyo caafimaadkiisa insurance waxaas in la cover gareeyo lacag la siiyo laakiin shidaalka xitaa ay bixinayaan booskooda waxay ku bedeleen qof India iyo Pakistan iyo Bangladesh jooga ka qabiirsan kana lacag yar halfkeeda xitaa tahay 1 of 3 baa la siinaya lacagta kan uu halkan ku qaadanayay marka hadda ku soo laabto Fiverr-ka uu ka shaqeeyaa Soomaaliya bangiyada Soomaaliya uu ka shaqeeyaa dad badan ba ka diiwaan galnay ilaa 7 video oo serious tutorial ah baa runtii ka sameeyay oo 2 sano kor aan ka sameeyay step by step qof qaab uu isaga diiwaan gelinayo description-ka meelaha bangiyada la geliyo
qaabka waxa weeye qofku xitaa order u heli lahaa ama loo create karayo offerka runtii waa sameeyey laakiin Upwork bangiyada Soomaaliya ma aqbalo laakiin Fiverr-ka baa ku xoog badan kaasaana laga shaqaysan karaa tan labaad Soomaaliya channel-yada waxa online u leeyahay wadamada kale dabcan Soomaaliya waxay wax la wadaagtaa saaxib yaal Afrika gudbi wax la wadaagtaa Afrikada guud xitaa website waaweyn oo ka shaqeeya maaha sida Paybal oo kale basically kama shaqeeyo Paybalka marna qofka asaa lacag dirayo marna qofka asaa lacag loo diro laba weeye Soomaaliya kaliya waxa u furan inuu asaga lacag diro laakiin lacag loo soo diro qof Soomaaliya jooga Paybalka uma furna meeshii qofda VPN isticmaalayo si kale uu isticmaalayo website markay way jiraan kuwaas oo kala oo access-ka oo aan Soomaaliya ka shaqeyn aduu waxaan la wadaagaan qaaradda Afrika oo dhan bilo wareega oo systemka address-yada iyo bangiyada saxan iyo waxa soo dhan mostly Afrika ma lahan laakiin kuwa badan waxa jira dhalinyarada ku ka shaqeystaan oo kale mostly annaga aan ku jirno kale waa laga shaqeystaa qofka caalbaad maanta intuu wax ka gato Soomaaliya soo joogo ka soo adeegto oo lacagta bixiyo baa alaabta loo keeni karaa business halkaas uu ka bilaabi karaa YouTube ka shaqeysan karaa qofka TikTok iyo Instagram iyo Facebook lacag ka sameyn karaa blog iyo article intuu qoray AdSense lacagta uu ku siinayaa Fiverr inta iska diiwaan gelisay website designer ahaan logo designer ahaan ama wax kale turjumaan ahaan Soomaali badan baa uga shaqeysto lacagana ay ka sameeyaan marka almost businessyada waxa dadka badan ay ku jiraan uu ka shaqeeyaa waxaan dhihi karaa cryptocurrency baa laga yaabaa inuu qofku markuu deposit gareynayo Soomaaliya lama ogola laakiin Binance brokerka dhahan oo brokerka ugu weyn waxa weeye dhankaas qofka passport Soomaaliya uu iska diiwaan gelin karaa laakiin deposit-ka waa qofka inuu lacag deposit karayo dadka mas'uuliyad Kenya jooga lacag u diraan oo brokera kuwaas u habeeyay marka laakiin xoogooda way ka shaqeeyaan macallin Gelle waan ku soo noqday waxaan rabay inaan ku weydiiyo waxaa ka sheekayday inaad involve ku tahay different model oo online business ama ha noqoto bloggingka YouTube-ka Fiverr-ka oo hadda freelancer-ka so khibrad ahaan how you manage that waa mahadsantahay walaalaha step by step runtii anigu soo bilaabay businessada hadda aan ku jiro iyo kuwii 2 sano ka hor aan ku jiray runtii isma lahayn tusaale kale aniga markii hore turjaan waxa ka ahayn Fiverr-ka baan iska diiwaan geliyay Englishkii Soomaaliga baan isku waxa weeye turjubi jiray shirkado Soomaaliya waxta la soo xiriir jiray hay'ada baaruntii la soo xiriir jiray xitaa maamul goboleedka Soomaaliya mataqaana shirkada ay ku jiraan kale ama qof u shaqeynaya ama busy intuu document weyn soo diro kulay soo turjun ama qof waxa weeye arday jaamacadaha ku jiro Soomaalida qurbaha ku dhalatay ama Soomaalida waxa weeye ama qof waddanka u dhashay raba inuu mataqaana baxth ama research ka sameeyo Soomaaliya oo raba document Soomaali intuu helay in English loogu turjumo ama qof Soomaaliya oo raba English loogu turjumo halkaas ka soo bilaabay runtii waxa weeye dhabarka ugu jabi jiray waayo lacag yar baa intii lagu siiyay waxa soo mataqaana turjumisa document waxa weeye 10 page ama 12 page baasi sax u soo baa turjumisa waliba waxay sameynayaan marka gudbisid waa lagu celinayaa kuleeyeen halka iga soo sax waayo waxaan way soo akhrinayaan marka kullu soo saxda waayo Fiverr-ka lacag kuma siinayo ilaa qofka waxa client-ga order-ka oo confirm karayo lacag kuma siin halkaas ka soo bilaabay waxa weeye YouTube ka soo bilaabay lacag yar bay siin jireen hadda waa ka soo gudbo waxa soo hadda ma sameeyo waxa weeye hadda waxaan ku soo koobnaa waa iskuulkayga akademiyada iyo blog aan qorno iyo waxa weeye YouTube soo kala hadda shirkadda website design-ka team baa ka shaqeeyo yani oo hadda waxa weeye shaqo saas ma qabto kaliya business-ka inaan manage gareey maana shaqada basic ma qabto website design-ka dhalinyaro baa u qaabilsan lacag baa siinaa ayaga dadka website u sameeyo YouTube ka aan sameeyo video waa duuba muuqaalka Kenya u dira yar baa iisoo edit gareeyo lacag ku siinaa uu isee blog oo kale yar Hargeysa joogo ba article si daily u soo geliyo urti waxa weeye waa ku bay kareynaa ardada inaan qabano kala team kala baa u qaabilsan xafiiskana Soomaaliya ba ardada qabto WhatsApp-ka u jawaabo marka meesha ka soo bilaabay hadda ismaalaha waxa soo dhaxda anima ku dhex jiro laakiin ina business-ku markuu waxa shaqeeyo hore baa loo socdaa qofku waxa weeye meesha waxa weeye iskala waxa muhiim ah inuu business si horumariyo laakiin shaqooyinka hoose ku mashquul waqtiga ka dhacaya business-kan innovation-ka iyo waxa ka dhumayo mataqaana waxa weeye inuu si balaarto marka saas hadda u shaqeeyaa aad baa u mahadsan tahay Cabdiraxmaan iyo Mawlidba marka gacanta waxay taagan tahay waa soo dhaweynaa Cusmaan kaliya Cusmaan Bey Cusmaan soo dhawaada
السلام عليكم دمان أخيكم سلامية ugu horreey walaalkan cabdiraxmaan geela bashiir horta etoobiyaan joogaa barasho wanaagsan cusman baa la yidhahdaa walaal aad baan idin salaamaya dhammaantiin walaal geela bashiir akademiyadiis aadan ula socdaa welibana mobile data etoobiyaan joogaa oo mobile datan isticmaalaa yaan ligo quslin waxa weeyaan welibana flores baan u ahay aad baan ula socdaa waxa weeyaan youtube-kiisa haday noqdo bloggiisa waan akhristaa aad baan ula socdaa waxa weeyaan aadna waan u jecelahay wallahi xitaa koorsooyinka akademiyada ka baxa waxa weeyaan fursadaan ku dhigto waxaan u waayiba meel aan xitaa paymentiga ku dira male macnaha dee access uma haysto internet xitaa iyo waxyaabo lamid a marka online business horta Ethiopia aad bay ugu xiran tahay xitaa online marka la yiraahdo Ethiopia waaba laga xishoodaaba marka waa dadka si un bay ugu yara cabsadaan marka niyo nin Ethiopia joogo maxaad qaabkeed u dhihi lahayd xirfad ku baro oo waxaan e-commerce-gana si guud wuxuu u baahan yahay xirfad haddii ay noqoto waxa weeyaan kow inaad noqotid waxyaabaha yar xitaa haddii aad noqoto freelancerka laftiisa graphic designer inaad noqotid waxyaaba noocaana xirfad baa u baahan tahay marka haddii aan su-aasha usoo dhaadhaco waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofka hadda xaggan jooga inkastoon hadda meelaha kale intaan tagay aan soo sameeyey waxyaabaha hadda mastercardiga waxyaabaha somaliland aan kasoo samaystay haddana laakiin ma dhaqaajin kartid qaab yar online ahaana mooyaane ma dhaqaajin kartid oo wixii haddana inaad tagtid oo safar geshid bay noqon safarkana waa iska dhul oo waxa weeyaan gaari baa la raacaa oo riskigiisu iska wataa marka macna qaab sidee aad nagula talin lahayd inaan macnaha de hadda Ethiopian joognada Soomaalida Ethiopia jigjigaan hadda joogaan saban laakiin wax ka bartay marka sideen xirfad ku dhigan karnaa qaabkeen xirfad ku dhigan karnaa hadda xirfad ku baran karnaa by the way mobile data waa taqaan accesskiisa uu iska yar yahay hadda in la hadlayo mobile datadiidaan isticmaalayo leer ma jiro wifiga xaafadda uu maqan yahay marka waa iska Ethiopia saas aan u dambayno oo 2015 soo marhaynaa marka adigoo mahadsan waxaan ku dhihi lahaa macnaha qaab tala nuuceedna siin lahayd oo aadna dhihi lahayd bal adduunka kaaliyo oo xaggan waxa weeyaan xirfadda sidaan u barta wasalaamu calaykum aad baan idin salaamaya cusmaan walaale aad baa u mahadsan tahay run ahaantii waxa weeye tib aan ku siin karo runtii waxa weeye ma jirto waayo internetka the alternative option kale oo interneta runtii maanta waxa weeye ma ku siin karo ismananihi runtii waxa weeye wuu jiraa accesska internetka haddii xaggiina uu waxa weeye uu ka xun yahay waa dhib weeye waxaas onlineka waxaa basic u arag waa internetka as long as internet fiican haysan way kugu adkaanaysaa runtii inaad skilladii baratid ama wixii aad ka shaqeyd laakiin qaab offline ah baa alternative option ahaan kuu siin lahaa intaa wixii aad baratid oo kale ama website international aad ka baratid ama soomaalida aad ka baratid in aad dadkii aad u faa'iidaysid oo taqaanid dadka deegaankaaga oo kale jooga inaad u faa'iidaysid businesska asoo offline inaad bilowdo qasab maaha businesska online ahaan intaa usoo baratid baa isla offline ku bilaabi kartaa oo dadka deegaankaaga jooga baa runtii adoon internet u baahan baad waxa weeye baad serviceka bixin karta laakiin wax internetka lagu bedeli karo oo adoo hadda internet haysan rabo inaad online u shaqeysid remote work aad adduun ka shaqeysatid alternative optionkeeda ilamihi ismalihi inaan u hayo cabdiraxmaan aad baa u mahadsan tahay sidoo kale saaxiibada kale barnaamijka dib uga soo biirayna soo dhawaada dadka gacanta u taagan tahayna waa soo dhaweyn doonaa cabdiraxmaan haddaan su-aalan ku weydiiyo ganacsatada soomaaliyeed maxaa kula talin lahayd si barnaamijka digital online-ka ah kor loogu sii qaado run ahaantii waxa weeye ganacsatada soomaaliyeed wax badan waxa weeye anigu waxaan isku dayay inaan weliba dad badan hadda shirkado waxaa jira runtii nala soo xiriiro aan ka caawino digital presence anigu waa aaminsanahay maamada Soomaaliga ama odayga Soomaaliga ganacsiga weyn iskale ama bakhaar kale ama shirkad weyn leh haddii la fahansiiyo intuu qof dhalinyaro tusaale kale intuu barto sida Facebooka waxa weeye lagu xaysiiyo sida Instagramka iyo Google wax lagu xaysiiyo qof intuu barto oday bakhaar leh ama oday shirkad intuu u tago inuu dhaho tusaale kale maalinka intee macaamiil ku yimaado tusaale qof dentista baad u tagtay waxaan ku maalinka intee macaamiil ama karantar dadkan baabuurta kareeyo kale laga iibsado brokerka maalintii intee macaamiil baa ku yimaada maalintii waxa macaamiil timaado 10 qof kaliya baa timaado okay intee wax ka gaato 10 qof markaan dadaalo 3 qof baa wax iga iibsato markaan dadaalo okay ka waran hadaa maalinkii ku keeno meesha 10 ka heliyay 30 macaamiil hadaa ku keeno oo 30 macaamiil say maalinkii igu keeni kartaa intee baad 30 kaas qof
ka iibin kartaa soddonkaas 10 qof baan ka iibin karaa haddaa ii keentid iyo adiga ii keen so marka haddaa processka aad u martid waxaad dhigi kartaa clientada inaa kuu keeniyo prioritigaaga iyo servicekaaga baan waxaa ku xaysiinaya googleka facebooka dad badan baan raj garanaynaa technologiga casriga baan isticmaalanaa projectka isii lacagta isii clientada kuu keena uu kaa yeelayaa saas aaminsan waayo business waaweyn baa Soomaaliya ka jiro digital presence ma lahan oo internetka iyo waxa way client badan bay raj garayn kara ayaga guriga joogo maanta qof kasta guriga joogo buu waxa way maanta saaxiibayaal buu adeegtaa oo wax kasta almost store inta aad leeyahay oo product ka soo weyn lahayd qofku wax u fiican intuu website galo oo storeka product ka baaro haddii taalan ka doonto haddii kalena uu iska daayo marka qaabka qofkii u maraa garaacada wax aaminsanahay inay waxa weeye fahamkooda aad u fiican yahay xitaa qofkan wax soo baran maamada wax soo baran xitaa business kale haddii qaabka wax lagu sheego way runtii waxa weeye way ka faa'iideysan kartaa dad badan hadda wayna la soo xiranaa website-yada kale ka caawina shirkadaha kale oo runtii waxa moodaa inay digital presence-ga hadda waxa weeye soo bilaabayaan maadaama offline-ka Soomaalida ay ku badan yihiin marka waxa weeye kaliya in la fahansiiyo lagala dhaxyo u baahanta maahane waa dad runtii waxa weeye aad u faham fiican Soomaalida inta boneerka iyo ganacsiga ayagu waxba baran bay ku fiican yihiin wadamo badankoodna way ka muuqdaan waxa weeye taasna waxa weeye waa wax aan wada ognahay aad baa u mahadsantahay Cabdiraxmaan saaxiibada kalena waxaa lana soo dhawaada walow hadda ku sii shaqeyna gabagabadii barnaamijka haddaan siino qof iyo labo kadibna Cabdiraxmaan maxaa la yidhaahdaa uu jawaabo su'aalahaas ama aragtida kusoo kordhinaysa soo dhawaada qofka kale oo danaynaya hello anigoo iskariya haddana mar labaad soo noqday macalin Geele Bashiir waxaan weydiin lahaa karaa su'aal kale aan qabay su'aashaasi waxay ahayd waxa ku saabsantay marketing-kan Alibaba la yiraahdo iminka Soomaaliya kale qofka jooga kale wax ma ka iibsan karaa Alibaba badanaa meelaha Facebook-an ku aragnay iyadoo lagu xaysiinayo koorso la yiraahdo sida looga gato Alibaba adigoo Soomaaliya jooga waxaan weydiin lahaa markaa waxba ka jira ma runbaa mise waa been qofka isagoo Soomaaliya jooga wax ma ka iibsan karaa Alibaba inaad intaa nooga jawaabtaan jeclaan walaalaha waxa weeye qof Soomaali jooga Alibaba waxa uu ka iibsan karaa waana tijaabinay wayna shaqaysaa dhalinyaro waxaa jira businesskaas oo ka shaqaysto tusaale kale hadda Muqdisho kale dhalinyaro waxaa jira xafiisyo kale oo dadka mataqaana bakhaaraleyda Soomaalida wax badan u soo adeego lacag ka qaaday way u soo adeegaan runtii business fiican runtii u noqdo skill aad u fudud muuqaalo badan oo bilaashana waa ka sameeyaan YouTube-ka article badan baa ka qornay step by step qaabka Alibaba looga adeegto payment-ga hadii noqoto qaabka supplier-ka mataqaana negotiation loola sameeyo waxa weeye negotiation language xataa baan ku tutanay terminology-ga suuqaas la isticmaalo si qof professional aad uga ogaato waayo waxaan supplier weeye waxay isku dayaan mataqaana inay priority ku qaliyaan laakiin marka waxa weeye luqadooda aad kula hadlaysid mataqaana terminology-gooda qof wax fahansan baa inaad tamarka ogaado si fudud mataqaana buu alaabta ka iibin qiimo aqoon marka uu ka shaqeeyaa Alibaba fiidyo badan waa ka sameynay intii raba inay ka soo adeegtaan oo kale YouTube-kayga iyo blog-kayga way ka heli karaan waxa weeye muuqaaladaas ama maqaaladaas Ustaad Geele aad baa umahadsan tahay runtii passion baan ku ahay areadan weliba in dhalinyaradu ay online businesska ka shaqeeyaan waan promote gareeyaa Ustaad waxaa jira tusaale ahaan Soomaaliya waxyaabo ay country rich ku tahay tusaale ahaan livestock value chain-ka kalluumaysiga xoolihii natural resources-ka sidee adduunka loogula ganacsan karaa tusaale ahaan in kalluunkii waddankeena ceegaaga wadamada deriska ayadoo through online la marayo sida Alibaba oo kale lagu nashad gareyn karo waa sax dhanka oo payment-ga caqabado badan ka jira laakiin Soomaaliya tusaale ahaan reforms badan bay ka sameysay dhankaas regulationska central bankiga aad buu u shaqeeyaa bangiyadii localka ahaa interconnection bay leeyihiin oo clearance settlement toos buu central bankiga u sameeyaa yani hadda dhowr bangi baa sheegtay laakiin hadda rajadu way fiican tahay bangiyo badan baa Salaam banki uu ka mid yahay
baa ku xiran maxaa la yirahdaa adduunka oo facilitate gareeya paymentskaas. Marka sidee aan dee wadan ahaan waxyaabahaas dariskana u baahan yihiin adduunka dhan looga baahan yahay qaab online ahaan loo ugu bedeli karaa? waa runtii waxa weeye su-aal aad u fiican weeye cabdalla, aad baa kaga mahadcelinaya. waxyaalaha waddan kasta wuxuu leeyahay saa ognahayba natural resource laga faa'iidaysto. saa ognahayba tusaale kale Paris iyo Faransiiska waxay caan ku yihiin cadarada iyo waxa weeye mataqaana international mataqaana brandska oo parfumada runtii la isticmaalo. xarumaha ugu weyn halkaas ay ku yaalaan. dhulkan la dhaho land of Bunty ama Puntland dhulka la dhahane asal magaca Puntland meeshu ka yimid Puntland ba waxa weeye waa halkaas waa mataqaana waxa weeye cadarada iyo noocaas. marka annaga iskale Soomaaliba iskale, laakiin wax ka faa'iideysan runtii wadamo kale oo international waliba beeyada iyo mataqaana baasha kale magaceeda ay ka maqan tahay oo mataqaana gobolada bariga fog laga soo jaro kale. maalinta hadda maamo UK degaba waxa u sameeyeen website beeyadaas iyo mataqaana fooxa iyo arrimahaas bay runtii keentay. UK bay hal markii December order fiican bay runtii cadaankii dukaamada lahaa bay u geysay, way aad bay uga heleen. soo marka waxaan website soo samayso qaab waxa weeye mataqaana professional waa ina contract aan kula galno, contract aan kala qaadano. marka waxyaalo badan waxaan ka wadaa oo wadankeena laga helo, laakiin aan suuqyada internationalka aysan u furnayn ama intii ajaanib naga sii gataan suuqyada internationalka Amazon iyo Alibaba iyo mataqaana Faransiiska iyo markadyo weyn oo kale lacag aan caadi ahayn ku iibiyo, anagana wax yar waxa weeye runtii naga soo siisanaya. marka haddii noqon lahayd waxa weeye kalluunka iyo waxyaalaha kale runtii anaga aan isticmaalno. marka gaar ahaan waxaa dhihi lahaa cadarada iyo arrimahaas waxa weeye waa market aad waxa weeye u bannaan dhimaankiisana aad baa runtii waxa weeye buu runtii qaali u yahay. marka nimco badan ba saaxiib yaal waddankeena taalo, laakiin adduunkii baa waxa weeye mataqaana market placekii ma yaalaan waxa weeye maana keenin, ama qof kale ajaaniba baa si dhib yar u keenayo lacag badan ka sameynay. marka inaan indhaha ku furno arrintaasna aan waxa weeye aan marketyada keeno runtii lacag badan waa laga sameyn karaa, waddankana dhaqaalaheeda kor buu qaadi karaa. cabdi waxaan aad u mahadsan tahay. qof kale hadduu ka xogsan karo. cusmaan soo gal, cusmaan mikrofoonka furo. waa mahadsantahay walaal cabdallah. walaal Geele Bashiir waa kusoo yara laabtay adoo raaliya. waxaan ku weydiin lahaa hadda Ethiopian joogaa payment methodka tusaalaan haddii website physical product baan iibinaa hadda oo baqaaraan leenahay. marka baqaarada shirkadaan la shaqeeya, marka haddii physical productgaas aan isku dayno inaan qaab digital u bedelno oo hadda tusaalaan gobolada deegaanka la geeyo oo kale, ma lagu dari karaa payment methodyada localka la isticmaala? hadda waxaa jira xawaalada yara la isticmaala, akawnada Ethiopia la isticmaala, ma lagu process gareyn karaa mise akawnada internationalka buu noqon? su-aal waa taa. oo weliba xitaa waxaa soo hoosgalaya tusaalaan hadda koorsooyin haddii la iibinayo xitaa akademiyada hadda internationalka sida kaaga oo kale, haddii xitaa wax lagu iibinayo inaan u dhexay transaction ah tusaalaan inaan aniga qaab digital oo caadi aan usoo gudbiyo, iyagana aan payment methodka u facilitate gareeyo oo waxa weeyaan payment methodka availability oo hadda Ethiopia laga helayo aan ayaga kaga qaado. taas ma la sameyn karaa? tan koowaad su-aasheeda koowaad waa taa. tan labaad hadda Alibaba iyo Amazon oo kale, Amazon FB baa jira baan u malayn, Alibaba iyo labadaba supplieraa jira. marka supplierada qaar iska hacks way iska soo galaan oo cyber security iyo qaar macna riyaal loo caadi wax laga iibsada. sidee lagu kala garanayaa horta sidee lagu kala garanayaa? iyo waxaan raacsanayaa ma noqon kartaa supplier ayagaasi dhex jooga oo kale supplier maad ka noqon kartaa Alibaba ama Amazon? asalaamu calaykum. waa mahadsan tahay. su-aasha dambe haddaa ka bilaabo runtii Amazon FBA horta qof iskaama kuma jiri karo. Amazon FBA ama shirkadda Amazon iyo Alibaba policygooda wax iibinta runtii aad bay u kala duwan yihiin. horta xitaa isku e-commerce ma ahan, midna waa B2B business to business oo waa Alibaba kaliya wuxuu ka iibiyaa dadka mataqaana business kale, waayo waa adigu jumlad ahaan wholesaler ahaan bay kaaga iibinayaan. Amazon waa business to consumer ama B2C weeye. Amazon marka waxay uga duwan tahay Amazon storadeeda alaabta ayada maamusho,
tusaale kale haddii aniga hadda inaan Amazon ka furto FBA baa la dhahaa programkaas alaabteeda waxaan ku dirayaa storeka Amazon America ama storeka Amazon UK Germany France waxa weeye Singapore India meel kasta Talyaaniga meel kasta ikun store baa alaabtooda lagu diraa soo marka ayaga maamulaya alaabta soo marka fake iyo scam ma noqon karaan orderka ayaga deliver garanayo kaliya adu lacagtii baad qabanaysaa waliba lacagta ayagana way kula ogyihiin qaabka aad u qaban laakiin alaabta deliveryga iyo mataqaanaa in waxa ayaga handle garanayo xataa haddii return dhacay ayaga soo handle garanayo store aad waxa weeye aad ka furutid weeye ama mataqaanaa koota aad ka qaadatid aad lacag iska bixisid marka Amazon qofka wax ka iibsado laguma dhici karo maybe alaabtaada inay dhunto taas waa macquul alaabta way dhumi laakiin dad scam ama fake kuma jiraan waa ilaa broad aad keensatid documentiga baasaboorka laga qabto alaabtina aad keentid la taabto alaabta maahan laakiin Alibaba waa macquul Alibaba laftigiisu dad scammers way jiraan laakiin qaab la iskaga ilaaliyaa jiro supplierada Alibaba membershipka waxa loo qabiyaa labo ama waa gold supplier ama waxa weeye waa Fi supplier Fi-ka sanadka wuxuu bixiyaa $10,000 100% waa sure asaga hadal mana calaamad gaar u leeyahay looga gaar u leeyahay fiido badan baa ka sameeyay waxa laga dalban karaa gold supplier-ka sanadka wuxuu bixiyaa lacag 5,000 asaga way jiraan dad gold supplier oo dadka dhaco kale way sababtaasna waxa weeye qofka business buu bilaabayaa alaabta gurigiisu taala by the way Alibaba uu ka duwan yahay anoo kale baa ku biiriyo ama adoo kale alaabta magaalada baa ku iibsa China waa dal balaaran magaalada alaabta xaafadada baa alaabta dhiganaysa soo halkaas ka dhex iibinaysa marka dad waxa business intii bilaabaan Alibaba ku dhex jiro marka hore si sax u soo gala oo raba inay wax iibiyaan businesska uu ka kaco kale ama u shaqeyn waayo hal qof intuu wax ka gato lacagtaas ay la gooyaan way dhacdaa laakiin kuwaas waa gold supplier qaab la iska ilaaliyo sanadaha waa la iska ilaaliyaa oo intuu qof sanad ku soo jiro businesskiisa waa la iska igaa waxa la iska eegi karaa qaabka lacagta ay u bixinaysana waa la iska Alibaba wuxuu diyaariyay platform lagu dhex bixiyo waxa lagu dhex chaatamo oo halkaas aad kala duwan waxa la fiiriyaa waxa loo policy waxa loo rate assurance waxa lagu leeyahay oo ah paymentiga in labadiina idin dhaxay Alibaba oo ayaga lacagta qabanaya ilaa alaabta lagu keeno ku qanaacid qofka lacagta ma taqaanaa marka hore waxa la siinaya lacag 30% inta kale Alibaba heenayo kaasna waa la isticmaal hadii aad baqaysid laakiin dadka orderada weyn dalbanayo kala way supplierada qaar baa offer garay policy-gaas waxa way trade assurance-ga qaarna ma offer garaya marka adigu tibis badan baa la sameeyaa muuqaalo badan baa ka sameeyay qofka raba YouTube-ga ka soo daawanaya ama blog-ga payment method-ka adoo YouTube joogo say wax baad u iimin kartaa runtii payment method-ka Soomaaliya ugu fudud sahal EVC iyo xilin sad iyo dee mataqaana xataa bangiyada wax lagu dhex iibsan karo website-yada laakiin Ethiopia waxa way arrimahaas runtii ma lahan waxa dhigi karaa waxa ku dhex xirataa plugin waxa jiro website-yada lagu dhex xiro WhatsApp-ka kala WhatsApp-ka waliba mataqaana bottomka caadiga baa soo dhigaysaa qof markuu bottom ku dhufto toos wuxuu u geenayaa WhatsApp-ka qofka markuu luuqo kala soo hadlaya xagee lacag ku bixi ku leeyahay waxa xawaalada ay soo dhigay ama halka ku dir qaab kale ee Ethiopia payment loo sameeyo ama cash on delivery daartin waxa qofka u geysay lacag ka soo qaadatay waa sameyn kartaa arrimaha Ethiopia dee anu maxamed gani payment method-keena gudaha ugu jiro laakiin website hadii aad leedahay plugin-kaas WhatsApp-ka la soo deg hadduu online-ka ugu shaqeynaa WhatsApp-ka dadka kala xiriir halkaas lacagta uga qabo iyo payment-iga aad baa u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Bashiir Geelle mar dhowna barnaamijka wuxuu noogu sii dhow yahay gabagabadii haddana haddaan siiyo Injineer Cabdiqaadir Yuusuf soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا دمان كسوق قبلياشة يقيل خبر بندقي سنة runtii wuxuu discussion aad wanaagsan oo iyagoo noocan oo kale in la badiyana mudan yahay waa mahad celinaya Somali Innovation Hub mar walba space-yada noocan oo kale inay soo badiyaan anigu waxaan rabaa inaan comment yarna ku darsado su'aal yarna weydiiyo geel commentiga waxa weeye dadka management-iga dhinacooda hadda u wareego shirkadaha leh badanaa site-kay joogaan inta badan marka sidee looga maarmi karaya qofkii asagoo business-kiisa ka maqan oo kale inuu maamulo waxaa shirkada waaweyn oo hadda ay ka mid tahay monday.com ama ClickUp oo kale qofkii uu business-kiisa xagga ka maamuli karo kii shaqadii soo galay kii shaqadii ka baxay kii mataqaana on time kii ka mashquulo kale xataa CCTV camera oo kale intii lagu xiro ama meelaha qaarkiis oo kale in loo hire gareeyo qofkii home base oo kale qof gurigiisa oo kale inuu ku shaqeeyo business noocaas oo kale sidee wadanka loo gaari karaa ayaan dhaweeto company-geena waxaan isku dayay inaan online-ka u goorno
oo daatadeena oo kale ku restore garaysano Google Drive ama Hotmail oo kale ama waxyaabo noocaas oo kale ayagoo kale sidee dadka loogu dhiirigelin karaa hadda daatadoo kale inaa kaydadkaaga oo kale qofkii uu faylal sameeyo oo waxaa arkaysaa meelo dhan oo faylal ka buuxaan digitalka oo kale waxyaabo badan buu fududayn karaa waan isleeyahay oo haddii aad access u heli kartid meelo badan hadda sawirro aan qaatay dhowr iyo 10 sano ka hor kaamirada aan ku qaaday waa dhuntay laakiin sawirro aan ku save garaystay Google-ka waan access garayn karaa oo heli karaa marka waxay ka turjumaysaa 20 sano 10 sano kadib faylashaan iyo waxaan hadda inaysan noqon baa dhici karta access oo sidee loo samayn karaa kor u qaadis hadda dawladda oo kale hadday noqon lahayd federaalka ama hadday noqon lahayd statiska oo kale ama ifra xataa kambaniyada oo kale sidee looga maarmi karaa offline oo kale loogu guuri karaa online hadday noqon lahayd managementiga hadday noqon lahayd ma jira gaab xaggaas oo kale opportunities oo dhalinyarta oo kale lagu baraarujiyo hadda anaga waa habka isticmaalayno oo kale inaan barnaa waqti nagu qaadatayba inaan sababtoo ah fieldigeeni ma aha marka ma jira dad manage garayn kara oo kale online ahaan u manage garayn kara oo set up garayn kara template-kii oo hawsha kambaniyada oo kale u fududayn kara qofkaan oo kale kambaniga iskale waxaaba dhici karta inuusan aqoon u lahayn waxaan isticmaalkeeda ama qof weyn yahay oo kaleba caqabadahaas oo kale sidee xal loogu heli karaa waan salaamay assalaamu calaykum waa mahadsan tahay cabdiqaadir walaale aad baan ku salaamay sidoo kale run ahaantii waxa weeye waa su-aal waxa weye runtii aad u adag oo u baahan waxa weeye weliba dad arrimahan waxa weeye filliga aad waxa weeye ugu takhasusay inay waxa weeye idea keenaan waxa weeye qaab digitaala in loo guuro tusaale kale aniga hadda waddanka aad deganahay waxaa laga sii guurayaa qofka in loo diro post email waxa weeye ama mailboxkaaga boosto lagu soo diro ama haddii dowladda biil kaa rabto invoice inuu kusoo dhaco ama in wax lagu ogeysiinayo kale waa laga guurayaa waxay sameeyeen runtii applicationo waxa weeye warqadda si digital bay kugu soo dhacaysaa oo runtii aad u fudud waxa weeye inuu qofka sameeyo tusaale kale waxay xitaa sameeyeen warshadada qaar marka aad galayso wadamada reer galbeed waxay ku leeyihiin ID-gaaga ama mataqaan passport numberka oo kale by the way halkaa geli si mataqaanaa aad marka waagi hore passportka intii la qoro mataqaana numberkaaga magaciisa form baad bixisaa kadib baa laga yaabaa in daatadaada ay soo baxdo laakiin hadda waxaa sameeya application yar la sameynaya marka u horeyba waxaad gelinaysaa daatadaada accesska dowladda iskale dowladda unbaa maamusho maadaama mataqaanaa privacyga daatada iyo mataqaanaa dadka mataqaanaa citizenka ay meesha ku jira oo 100% protection ay ayada leedahay marka waa wax runtii waxa weeye reer galbeedkan iyo wadamada horumaray ee dhaqaale badan ku bixiyaan oo ideooyin badan la geliyo fikir badan la geliyo qarash badan u baahan in mataqaanaa technology noocaas la develop gareeyo wax fikir badan u baahan dhaqaale inaba caadi ahayn runtii waxa weeye ku bixi kara laakiin waa qabaa in waxa weeye wixii digital marka loo bedelo dammoor mataqaanaa ay safe yihiin dammoor mataqaanaa loo mateeran la isticmaali karo wixii mataqaanaa la keep garayn karo waxa weeye faylasha dabcan qaar ba error ku dhaco marka isbedel soo kale cajalada hore Soomaaliya ku taalo kale cajalada filmadii hore daawan jiray oo receiverada la gelin jiray kale waxa la yaabaa hadda inay ku shaqeeyaan laakiin waxa la sameeyaa waa la bedelaa dokumentiga haduu muhiim yahay mataqaanaa qaab digital ah intii la wareejiyo mashiin waxa jira lagu kala wareejiyo cajaladaas oo qaab digital ah mataqaanaa videogii loo bedeli karo marka technology noocaas casri ah oo arrinta hadda ashagtana loo bedeli karo runtii waa wax mataqaanaa waqti u baahan waana qabaa in mataqaanaa runtii saxbeel laakiin waxaa jiro workspace-ka dadka isticmaalaya managementiga software saxbay waxaa jiro subscription baad ka qaadanaysaa waaweyn lacag bishii iska bixinaysaa ama sanadka dhan baad iibsanaysaa dhammaan shaqaalahaaga dhan waa ku maamuli kadhaa si mataqaanaa very waxa weeye mataqaanaa clear oo transparent ah halkaas waa ku maamulaysaa oo adoo meelaha maqan baa businesskaaga almost mataqaanaa waxa weeye maamulaysa adoo workspace-kaas isticmaalayo way jiraan kuwa la qaato subscription kuwa bilaash way jiraan laakiin marka subscription la qaato more access baa helaysaa waxyaalo badan xataa in mataqaanaa systemka oo dhan aad waxa weeye halkaas qofka ay kala socdaan adoona xataa email lagu soo dirin aad halkaa kelisin way jiraan ayagana aad baa umahadsan tahay cabdiraxmaan injineer cabdiqaadir isagana aad buu umahadsan yahay mar dhowna barnaamijka waa iska gebagabaysaan hadda wuxuu noo socday barnaamijka 1 saac iyo 20 daqiiqo cabdiraxmaan oo aad dhammaantiin wada garanaysaan baa noo casuunaa Geela Bashiir mawduucana waad wada fahansan tihiin oo xogaabaad barnaamijka ku jirteen waxaan dib ugu laabanayaa si hab iyo waxa ay tahay inaan saaxiibada kala nooga soo biiriyo faahfaahiyo
Somali Innovation Hub waa xarun hal abuur oo teknolojiyadda dhiirigelisa markaasna dhalinyarada iyo u samaysa spaces markaas ay fagaare ka hadal ku sameeyaan oo aragtiyadii baanu ku midaynaa. Cabdiraxmaan Bashiir Geela Bashiir aad buu mahadsan yahay. Cabdiraxmaan haddaan barnaamijka soo gabagabaysano adiguna aad noo soo gabagabaysid bal su-aalihii lagu weydiiyey caaway maxaa kaaga baxay iyo taladaada u dambaysa. waa mahadsan tahay waxa weeye cabdulla sidoo kale waxaa mar kale u mahad celinayaa Somali Innovation Hub oo spacekan waxa weeye ugu martiqaaday runtii waxa weeye aad u yar yihiin ama waan dhihi karaa waa difi naadir space noocaana in mataqaanaa technology-ga iyo fursadaha online businesska iyo shaqooyinkan adoo guriga joogo ama waxa weeye nomad lifestyle-ka ee dhahaan ama mataqaanaa commuter lifestyle-ka in mataqaanaa laga shaqeeyo runtii aad baan u dhiirigelinayaa aad baan idinka mahad celinayaa waana wax runtii qofka xorriyad dhaqaale iyo xorriyad waqtiba siin karo oo labada wax maanta qof kasta u raadiyo ay tahay marka waa idin mahad celinayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa saddex talo keli oo yaryar baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dhalinyarada raba saaxiibadeeda aan kula taliyo anigana nafteeda sidoo kale aan kula talinayo waxa weeye mindsetka waxay dhahaan baan rabaa inaan ku bilaabo manhagga waxa Soomaali ku dhahan mindsetka waxa weeye qofka inuu mataqaanaa tusaale kale in adiga is aqbashid in waxa weeye aad mas'uuliyadda qaadatid in mataqaanaa waxa weeye kaca kufa nolosha marbaad nolosha dhacaysa marbaad hore u soo marbaad kaca kufa nolosha inaad wax weyn u arago aad aqbashid in adigu is saamaxdid in mataqaanaa roolkaaga iyo mas'uuliyadda aad qaadatid psychology-ga waxa culimada the more wax positive iska aamintid waa the more mataqaanaa waxa weeye mataqaanaa aad guulaysanaysid laakiin naftada bahdishid ama adiga siisid ama adiga aad si khaldan aniga waxa ma samayn karsid bodiga waxa la afka wuxuu u sheeg uu qaataa basically uu sameeynaya marka insha Allah khair hal fasho manhagga haliska hagaajiyo mindset fiican qofka duu la imaado oo wax positive isku sheego marba waxa uu guulaysan tan labaad aan rabo inaan kula taliyo waxa waa saddex qodob waxa waa skill set-ka way waxa dhahan mindset tan labaad waa skill set qofka inuu xirfadaha barto way xirfadaha maanta waxa lagu shaqeysto ayaga ugu fiican xorriyadda qaalib ku siinay skill badan waxa jiruntii aad u muhiim wax badan runtii saxaabyaal waa ka qoray marka dhalinyarada in xirfado badan bartaan damoor xirfad waa damoor taqaan fursado waxa weeye dhaqaale ka sameyn karto dhanka sare tan saddexaadna waxa weeye tool set waxa dhahan oo ah inaan ka faa'iideysano teknolojiga casriga maanta sababtii saxaabyaal ChatGPT baa la isticmaalaa 4K waxa soo baxay aqliga samayska wax af Soomaali lagu dhabaa maanta la isticmaalo oo shaqaale badan maanta ay wadamada reer galbeed ka shaqeyn jireen mashiinadii waxa bedelayo waxa weeye waag hore hadda warshadaha mustari production soo saaro waxa weeye waxa 30 sano ka hor waxa ka shaqeyn jiray dad hadda shaqadii 30 qof ay qaban jireen hal mashiin baa qabanayo wadamada mataqaanaa reer galbeedka Soomaaliya 30 qof buu shaqada ka saaraa haddana mashiinka laftigiisa baa rabaa in meesha laga saaro dadka xafiisyada fadhiya meesha laga saaraya oo mataqaanaa aqli samaysa baa waxa weeye dadkii bedelayo dad su'aal weydiiso si qof academic wax barto kale kay marka teknolojiga casriga inaan la jaan qaadno oo xitaa skill badan baa soo baxada oo waxa lagu baranay ChatGPT iyo mataqaanaa artificial intelligence iyo aqliga samayska iyo maanta aqliga bini'aadanka baa in xoogaa intii laga dhamaystay baa iska naso aqli samaysa rabaa oo aan daalin oo mashiin ah oo 24 hour diyaar ah oo lacag badan kaga baxin internet iyo koronto bas u baahan in laga faa'iido marka toolsetka anagu de Soomaaliga waa ka sii dambeeynaaba in at least kuwii caadiga ah dadka ka tageen in ay isticmaalno oo teknolojiga caadiga ah ay horumar kale aan ka faa'iideysano dhaqaalana waana laga sameyn karaa waqti badanna wuu save gareyn karaa si positive waa looga faa'iideysan karaa marka intaas rabaa saaxiibayaal inaan waxa weeye idinku taliyo aad buu mahadsantihiin dhammaantiin Cabdiraxmaan baa ugu horeeyo iyo saaxiibadii kale ee aragteeda nala wadaagay si qurux badan baa runtii caawi nogala qayb qaadateen si hab mar walba aad ku dhowdihiin spaceyadan iyo kuwa kale oo lamidana waa keeni doonaa horena waa u keenay saaxiibayaal soo dhawaada haddana barnaamijka caawintaas noogu egyahay sharaf baa leedihiin thank you dhammaantiin